war degdeg ah daawadayaal madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo daqiiqado ka hor ku dhawaaqay inay Puntland sida dal madax bannaan dunida ula dhaqmayso isla markaana sheegay in hadda wixii ka dambeeya Puntland ay tahay sida dal Soomaaliya daris la ah oo kale Saciid Dani maanta waxa uu yiri bal ila dhageyso dawladda Puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax bannaan uga faa'iideysato khayraadkeeda ayna geli karto heshiisyo caalami ah haddaba Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo rabta inay maal gashato khayraadka ku jira dhulkeeda haddii ay tahay ganacsato Soomaaliyeed kuwa ajnabi ah iyo dawladaha daneynaya inay Puntland maal gashtaan ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay'adaha federaalka dalka Puntland ayaa ka hortimid qorshayaal oo Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dawlad dhiska Soomaaliyeed dawladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyo diiday afduubka siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyay taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka asagoo sheegtay inuu bedelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bixi doonto wuxuu si bareer ah ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland sidoo kale daawadayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xildhibaanadii muxaafadka ahaa ee taageersanaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo la saftay maamulka Puntland isla markaana ku dhawaaqay in ilaa inta Xasan Sheekh laga soo saarayo filla Soomaaliya ay sii ahaanayaan maamul madax bannaan Puntland ma waxay qaaday wadadii Somaliland maxay ahayd khudbadii maanta uu jeediyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maxuu ahay xildhibaanka mucaaradka ku ahaa Saciid Dani ee Saciid Dani inuu su'aal weydiiyo dalbaday laakiin Saciid Dani uu isaga cararay meeshii su'aalaha markaa lagu weydiinayay iyo meeshii uu taagnaa ee uu khudbada ka jeedinayay iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinayaa akhyaarta qiimaha badanow meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan oo faahfaahsan waana kii ugu xasaasisanaa aan dhihi karaa toddobaadkan barnaamijyada aynu halkan ku soo gudbinay haddaba soo dhawaada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku dhawaad 20 daqiiqo khudbad u jeediyay baarlamaanka Puntland ayaa weerar culus ku qaaday dawladda federaalka isaga oo si gaar ah u dhaliilay madaxweyne Xasan Sheekh dhulkana la jaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxyaabaha uu ka hadlay ee xasaasiga ah waxa kamid ahaa wuxuu yiri Puntland si madax bannaan ayay ula dhaqmaysaa inta laga helayo dawlad Soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay dunida iyada oo eedayd culus u jeedisay dawladda wuxuu leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay abuurtay ciidan iyo burcadbadeed arrintu waa cuslaatay burcadbadeed in la isku eedeeyay ayay arrintu gaartay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaana eedeyntiisu waxay ku soo aadaysaa iyada oo dhinaca kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wado deegaanada Puntland oo sidoo kale Jimcaale Jaamac Takar ninkii weynaa ee ciidanka danab hogaamin jiray waxaa loo magacaabay xilka taliyaha guutada kontari afraad guutada mid hore u jirta ma ahan xilligii Siyaad Barre ugu dambeysay dawladda federaalka ah ayaa magacawday iyadoo sheegtay habraacyadii ciidankan ku shaqayn lahaayeen inay dhisan yihiin hadda wixii ka dambeeyana talo wax la yiraahdo oo Saciid Dani looga baahan yahay aysan jirin haddaba awooddaas madaxweyne Xasan Sheekh ma u suurtagali doontaa Jimcaale Takar laftirkiisa oo hadlay isagoo wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan awood uga saarno ciidamada daraawiishta saldhigga ciidanka kontari afraad ee degan yihiin arrintu marka waa cuslaatay si toos ah ayaa markaa la isugu dhamaan doonaa sida muuqata haddaba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maanta waxaa garabkiisa ahaa oo dhinaca kale la safnaa xildhibaanadii Puntland xildhibaanadii golaha wakiilada qaar badan oo kamid ah ayaa taageeray Saciid Dani iyagoo sheegay Saciid Cabdullaahi Dani meesha uu wax u wada inay tahay meel saxan marka laga reebo xildhibaan si weyn arrintaas uga soo horjeestay isla markaana taageeray dawladda wuxuu yiri Saciid Dani meesha uu wax ku wada ma ahan meel aqbali karo su'aashaydii waa ka cararay madaxweynaha iyo hadallo kale oo runtii saameyn leh xildhibaanada Puntland ayaana ka falceliyay dabcan
sida uu Siciidani uga dhaqaaqay hoolkii su'aasha uu rabay inuu xildhibaanku ku weydiiyo bal haddaba daawadayaal waxaan rabaa bal inaad ila daawataan khudbaddii miisaanka cuslayd ee uu jeediyey madaxweyne Siciidani. dowladda Puntland weli kama quusan ka mid ahaanshaha dowlad midnimo Soomaaliyeed oo federaal ah, laakiin inta laga helayo dhismo dowlad heshiis lagu yahay sida uu qabo qodobka 4 iyo qodobka 54 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 44 iyo qodobka 142 ee dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed. Puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax bannaan uga faa'iideysato khayraadkeeda ayna geli karto heshiisyo caalami ah. haddaba Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo rabta inay maal gashato khayraadka ku jira dhulkeeda, haddii ay tahay ganacsato Soomaaliyeed, kuwa ajnabi ah iyo dowladaha daneynaya inay Puntland maal gashtaan. mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin, waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14 Abriil iyo 15 May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka. waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 Juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka. golaha xukuumadda Puntland wuxuu 21 May 2026 soo saaray in Xasan Sheekh Maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed uu xafiiska ku sii joogo. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo isugu jira dowladda Puntland, dowladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyey sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay-adaha dowladda federaalka kuna qabsooma wakhtigeeda. nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Puntland waxay kaloo soo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka. Puntland ayaa ka hortimid qorshayaal uu Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dowlad dhiska Soomaaliyeed. dowladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyo diiday afduubkaas siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyey, taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka, asagoo sheegtay inuu beddelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin, madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix wakhtigeedu soo bixi doonto, wuxuu si bareer ah ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Puntland oo ay og tihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay. wuxuu horay duulaan hubaysan ku qaaday magaalada Raaskambooni ee dowladda Jubbaland, asagoo halkaa ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya. wuxuu sidoo kale afgembi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyey magaalada Baydhabo, asagoo xoog ku muquuniyey meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambayntii ka jirtay. wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho. sida aad la socotaan, madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayey kacdoonkii shacabka ee magaalada Laascaanood ka dhacay bishii December 2022 ilaa Agost 2023, asagoo markii dambena isku dayey in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo
dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh ayaa isku dayay inuu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ay muddada dheer kula jirtay cadowga argagixisada Daacish asagoo is-hortaagay ku sameeyay taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid ah saaxiibada caalamka wuxuu kaloo calqaradayn joogto ah ku sameeyey diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayay dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayay iyada oo si joogto ah loogu diidayay in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya dowladda iyo shacabka Puntland oo fahamsan dhagaraha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isha ku haya fargelinta joogtada ah ee uu ku doonayo inuu ku carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida ka jira deegaanada Puntland dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun Bayla Eyl iyo Jariiban ee Puntland dhalinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas dowladda Puntland marna ma aqbalayso qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hannaanka dowlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah uuna saldhig u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee 2012 waxayse diyaar u tahay inay qayb ka qaadato sidii lagu gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay hay'adaha federaalka ah dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 48aad ee dastuurka ku meel gaarka ah waxay aaminsan tahay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay si xor ah ugu dhaqmaan dastuurkooda madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ka daayo fargelinta iyo jajuubka siyaasadeed ee ku hayo dowladda Puntland waxay si adag uga digaysaa wixii faragelin amni ah ee madaxweynuhu hore ka dhex wado meelo ka mid ah deegaanada Puntland dadka reer Puntland waa inay meel uga soo wada jeestaan xasaradaha amni iyo siyaasadeed ee uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Puntland waxay sidoo kale cambaaraynaysaa barakicinta jajuubka xariga dilka uu madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ka hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan duulaankii hubaysnaa ee uu ku qaaday madaxweynihii hore ee dowladda federaalka mudane Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre sidoo kalena gudaha loogu galay laguna burburiyay hanti ganacsato Soomaaliyeed ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho dowladda Puntland waxay beesha caalamka ugu baaqaysaa inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo joojiyo damaca waalida ah ee Xasan Sheekh Maxamuud rabo inuu afduub siyaasadeed ku sii jooga xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagana wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay lagana hortago sii socosho firaaq dastuuri ah iyo qalalaase amni sida aad daawateenba madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani maanta wax uu reebtay male weerarkii ugu cuslaa ayuu ku qaaday dawladda isagoo waliba yiri sida dawlad kale madax banaan ayaan u dhaqmaynaa meel uusan arinta gaarsiin mala maanta burcadbadeed ciidamo maleeshiya beeleed wax kasta waa ku eedeeyay dawladda inay abaabulkooda ka wado Puntland dhinaca kale xildhibaanadii Puntland ayaa iyaguna taageeray madaxweyne Dani marka laga reebo xildhibaan iyo dhowr xildhibaan oo kale oo iyaguna mucaarad ahaa haddaba xildhibaankii mucaaradka ahaa iyo xildhibaanadii kale ee muxaafadka ahaa hadalladii ay jeediyeen iyo su'aalihii la weydiiyay ay wariyaashu weydiiyeen waa kuwan ما صلاة شباب بوها بين الشباب بوها أي متقنا هذه الشيء حسن شيخ يوم متقنا حلفيسي شداعش الشباب واجود رهانجة صارت وضو كذا تيم كحسن شيخ كوها رئيسا والتيم كان كل ده قال من بورها واسكبت ما صلاة شباب بوها بين الشباب بوها ماذا هاي فرن شباب بوها maxaan ku dhahay nabad sugud intooda badan shabaab bay ahayd dadka noocaas marka oo isku dayay mar labaad Puntland inay mataqaana ay de xagal daaciyaan waxyaalaha haday jiraan ka dugtoonaanahay weeye inay shabaab hayeen idinkaaba taariikh hore iyagoo baabuur wada saaran xilligii Sheekh Shariif iyo dhaawac la wada qabtay ay ka dagaalamayeen ay dhawayo sanagu ma ahayn ciidamadii halkaan inta ka baxay bay dhawa marayo moodo barayo bakaaraatay sanagu kama namaday midana dhaawac ku qabanay midana dawin ku isa jirin maanta dalka xukunkiisa inta qabtay waxay ku leeyihiin waxaan nahay dawlad
wala shabaab bay hayeen dhammaantood isaga laftiisa wuxuu ahaa dadkii 91 mudo xasan sheekh khudbadu noo akhriyay anigu waa duraayay boqolkii 80 waa duraayay inay wax ma jiraan tahayna waa dareemayay in su'aal markaan dacaan ka weydiiyana su'aalo waxa diiday guddoonka baarlamaanka diiday adigu aragtidiisa bay la noqotay inuu ii diido laakiin waxaan rajaynayaa in madaxweynaha mar labaad golaha looga yeero iyadoo sharciyada la adeegsanayo dugsuurka waxaas waa goobtan weli ma soo gaarin wuxuu markii gacanta lagu dhigo uu soo gaaro golaha uu yimaado waagaasaan ka hadli karnaa waxaan hadda ana gacan ku hayna kama hadli karno Somaliland aqoonsi bay shalay madaxweynahoodu tagay Israa'iil ku tagay waxa laga yaabaa inay helaan walaalle waxaas aqoonsi lama yiraahdo waa dembi qaran oo Soomaaliya laga galay in dal maamul ka mid ah Soomaaliya maxaa ku dhigay isteedadeeda ay hadda day wadan fiican ixtiraaf lahaayeen waxbay ahaan lahayd wadankaas laayay dadka muslimiinta oo haysta Baydul Maqdis haysta oo maxaan ku dhahaa dambiilayaasha aqoonsi lama yiraahdo waana uga maxaan ku dhahaa nasteexaynaya dadka reer Somaliland inay Ilaahay uga cabsadaan waxyaalaha ay ku jiraan waana halaag weey waxa sheegtay inaan aqoonsigaas aqoonsi hayn balse madaxweynaha Somaliland wuxuu joogaa Israa'iil buu joogaa Israa'iilna waa taqaanaa way naqaan ka waran haddii hub soo siiso halka soo fariistaan xaalad sharafada Puntland waa tan walaalle maya anaga horta anaga hadda Somaliland heshiis baa madaxweynuhu noo kala qoray oo inaanu heshiino ganacsi isdhaafnay madaxweynaha dani baa ka shaqeeyo hadda anaga ma soo weerarayaan laakiin iyaga waxa helayeen baba iyaga laftooda waxa helayeen baba waa tahay madaxweynaha dani waxa la sheegayaa inuu federaal Somaliland hadda saasheegtay heshiis buu leeyahay hadhow maadaama haddeer uu heshiis leeyahay wax wadadan ay ku socdaan uu ku raacsan yahay hadhow qaabkee wadan nooceeb uu mari karaa haddii madaxweynuhu noqdo Soomaaliya madaxweyne dani isagoo hadda kala jaraya Soomaaliya oo heshiiska Nairobi ku galay 2025 aan hadda akhriyay inuu hadana madaxweyne Soomaaliyeed baan ummadda u noqonaya isaga laga rabaa sidoo ummadda ay cod uga heli lahaa ama uu ku hogaamin lahaa isagu inuu sheego maadaama kii kala jarayay uu yahay adiga ka fadhiga baad hadalka lagu والله madaxweynaha su'aal baan weydiin lahaa qodobada akhriyan wax ka weydiin lahaa laakiin nasiib darro kuma guuleysan inaan su'aashii helo sida reality-ga su'aaluhu qodobada akhriyan kana bay ku jireen waxaan banaanka ka keen lahaa maaha wuxuu noo akhriyay baan wax ka weydiin lahaa waa tahay ugu dambeyntii golihiinan golayaashii ka horreeyey madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deni iyo madaxdii kale soo fadhiisay su'aalaha laga weydiin jiray kafiyada markay yimaadaan maxay tahay sababta golahan su'aalo u weydiin lahayd والله هذا guddoonka su'aashaas kale guddoonka weydiisan bay fiicnaan lahayd inuu guddoonka ma xumin baan hayo xumintana waa midan codkayga hadda intaan ku dhiibtay maxaan ku dhahaa ay igaga dhacday arrin طبعا xiisadda Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markaan u muuqata mid culus haddii koonfur galbeed la tijaabiyey oo galmudug la tijaabiyey oo hirshabeelle la tijaabiyey oo Jubbaland la tijaabiyey maanta Puntland ayay kor taagan tahay ciidamadii darab meel ayay joogaan ciidankii kontari afraadna waxaa loo dhiibay ninkii ciidanka danab hayay Jimcaale Jaamac Takar xaaladdu marka waa culus tahay hawl adag ayaana dabcan meesha ka muuqata haddaba daawadayaal xaaladda Puntland iyo arrinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland maxay ku dambeyn kartaa ma ku soo muuqataa maanta qorshaha filla Soomaaliya ay rabto inay ku wajahdo maamulka Puntland inuu yahay mid guul laga keeni karo sidaynu wada ognahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni inta badan xildhibaanada maamulka ee golaha wakiilada qaar badan oo kamid ah way la dhacsan yihiin maamulkiisa oo ay taageersan yihiin qaarna way ka soo horjeedaan Siciid Deni waxa maanta uu wajahaya cadaadis xoogan waxaana kamid ah in dhaqaalihii imaaraadka carabta ka soo gali jiray qaar badan oo kamid ah la xadiday oo la kontroolay filla Soomaaliya sidoo kale waxay jirtay xiriirkii cilaaqaadka wanaagsanaa ee u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo imaaraadka oo keenayay in imaaraadka carabta maamulka Puntland gaar ahaan madaxweyne Siciid Deni dhaqaale wixii ay heli karaan ku dhoobaan raadeero iyo adduunyo ayaa la sheegayay inay sidoo kale Puntland keensadeen imaaraadku hadda wixii oo dhan waa u dhamaatay imaaraadku wuxuu waa qaateen amar ayaana lagu siiyay waxa Soomaaliya ka yaala inay la baxaan oo ay guuraan habeen madow dabcan arrintu marka waa culus tahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni herdan iyo dagaal siyaasadeed oo culus ayuu dabcan imika wajahay dad badan ayaana dabcan waxay leeyihiin yani
siciidani dagaalka uu filla soomaaliya la galayo ma miduu guushiisa ogyahayba filla soomaaliyase dagaalkan iyadu maxaa faa'iido ah oo ugu jira puntland iyo jubbaland labada madaxweyneba shalay iyo maanta ayay kala hadleen iyaga oo labadoodaba si weyn u weeraray dowladda federaalka ah weerar culus ku qaaday madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shalay wuxuu ka jawaabay arrintii ahayd xasan sheekh aqoonsigiisa yacni axmed madoobe ma aqoonsanin ayuu ka jawaabay wuxuu leeyahay annaga aqoonsi maba kaaga baahninba reer jubbalandna la yidhaahdaa maamulkan jubbaland dhistay dadka jubbaland ku abtirsada ayaana iska leh wax aqoonsi la yidhaahdo oo aan kaaga baahannaha haba yaraatee ma jirto dabcan arrintaas waxay keentay marka yacni in dowladdii dhinaceedii ay su-aasha kusoo laabato sababtuna waxaa waaye axmed madoobe shalay ciidanka uu soo bandhigay waxay ahaayeen ciidan aada u badan iyadoo dad badan ay leeyihiin ciidamada aynu aragnay axmed maxamed islaam kolley al-shabaab kulama dagaalami rabee ma wuxuu rabaa inuu kula dagaalamo dowladda federaalka ah oo gobolka gedo rabta inay ka qabato doorasho qof iyo coda runtii xaaladda siyaasaddu aaday u culus tahay dad badan ayaana dabcan indhaha ku haaya meesha ay wax ku dambeyn doonaan iyo meesha ay wax u socdaan sababtoo a dadku waxay imika arkaan in jihada siyaasadda ay tahay mid aada u culus haddii dhinaca koonfureed ay wax ka karkarsanaayeen markaa dhinaca bari dhinaca galbeed iyo dhinaca koonfureed iyo dhinaca waqooyi ayay arrinta ka bilaabatay dhaqdhaqaaqu markaan puntland iyo jubbaland ayuu u wareegay gobolka gedo iyo gobolka bari ayay arrinta u muuqataa inay isu bedeli doonto sababtoo ah ciidamada hadda dowladda federaalka ah waxaa la geeyey qaar badan oo ka mid a gobolka bari iyadoo halkaas ay rabaan inay ku qabsadaan saldhigga ciidanka 54aad oo dabcan dowladdu ay u magacaawday generaal jaamac takar waa nin jabhad ah nin dagaalyahan ah nin ay filla soomaaliya u aragto inuu fulin karo qorshahaas waana runtii qorshe ay dowladdu rabto hadda inay ku wajahdo maamulka puntland haddaba akhyaarta qiimaha badan oo barnaamijkeennii intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dadka reer puntland kasoo jeeda khaasatan iyo dadka kasoo jeeda reer jubbaland maanta barnaamijkeenu waa xasaasi adinka ayuuna si gaara idinkaga hadlayaa waxaan rabaa saaxiibayaal bal inaad fikirkiina iyo aragtidiina nagu beerisaan madaxweyne siciid cabdulaahi deni dagaalka uu filla soomaaliya la gelayo ma noqon doonaa miduu ku guulaysto mise is leedahay siciid deni wuxuu gelayaa dagaal guushiisa uu ogyahay sida axmed madoobe oo kale axmed madoobe siday arrintu u ahayd afka oo ay arrintu u ahayd afka markii dambe waxay noqotay in raaskabooni lagu dagaalamo axmed madoobe inkastoo ay nasiib darro ahayd ciidamadii dowladda soomaaliya iyo jubbaland ciidamadeedii oo hal cadow lahaa inay iyagii dagaalamaan oo ay etoobiya iyo kenya gudaha u galaan oo madaxweynihii kenya william ruto nagu raaxaysto oo uu yidhaahdo ciidankii soomaaliya iyagoo cararaayo oo kasoo cararaya sida qaybtii ayaga ka mid ahayd ayaan qabanay magangeliyaan siinay inuu yidhahdo waa foolxumo laakiin haddana axmed madoobe waxaa la dhihi karaa wuxuu og yahay ayuu sameeyey siciidana ma is leedahay ninku dhacdaas leh waay mise is leedahay siciidadii ciidamada puntland waa uga falan yihiin inay difaacaan haddii ay timaado in la difaactamo daawadayaal barnaamijkeeni intaasaan kusoo gabagabeynayaa inta aynu barnaamijka mid lamida ku kulmayna akhyaaray waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu